gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Fulay ayaa kormeer ku tagay tuulada Bixin oo ka tirsan degmada Ceerafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag. Axmed Cabdi Jaamac Fulay waxa halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta degmada Ceerafweyn iyo waliba mas'uuliyiinta tuulada Bixin odayaasha deegaanka bulshada ku dhaqan tuulada Bixin. waxayna gudoomiyaha booqashadiisa ku wajahnay kurgalida xaaladda degmada. munaasabad kooban oo lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha ayaa waxa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka mas'uuliyiinta tuulada Bixin waxayna ka hadleen xaaladda dadka iyo dunyada tuulada Bixin iyagoo ku dheeraad inay ka qatan yihiin waxbarashada caafimaadka iyo baahiyaha asaasiga ah. halkan waa magaalada aragtaan waa magaalo qadiima xagga ay hadaan ku horeeyo nabadgelyada runtii inkastoo hadeer aanu ladanahay oo ciidan military halka jooga oo dugsigan oo aanu marka wax nagu yaradkaan aanu ku cararo darigii hore waxa nagu adkaan jirtay alxamdulillah hadeer waa ladanahay sidii waanu dhaanaa haddana waxaanu jecelahay si ka sii wanaagsan waxaanu jecelahay rugbooli naloo sameeyo meesha ciidan booliis la keeno iyaga ugu daloolada dadka la xidhiidh leh waxa weeye marka laga bilaabo caafimaadka mabalihin RCH bamalihin marbaana la siiyo markiina waa naga qaaday hadii ay ruuga sii gudubno wasaaradda waxbarashada halka waxaanu DRC baa noo tiri waxayna tiri mashruucaan fulino lacag yar oo mashruuc ka hadhaan haynaa maxaanu idin ku qabanaa oo bal waxa samaysan halka nooga dhisay school baanu nir laba galaas baa naloo dhis labadii galaas ma dhamaan waxa maqan wax badan baa ka maqan 560 kaas waxay beertaan dhul dhan 1670 hektaar oo dhul ah xilliga hore wax la beeri jiray waxa beeruhu ay gaar jireen 3000 oo hektaar hadeer biyo way soo yaraadeen kanaalka aad arkaysaa wuxuu soo maraa 4 kiiloomitir oo dhul ah oo ciida boqolkiiba 10 baa biyo yimaada inta kale way lumaan waxa lunta ciida cunta waxay beeri lahaayeen ilaa 3000 oo hektaar haddii biyaha la mariyo sibid oo laga ama beeb la geliyo waxaan isleeyahay Soomaaliland waa gobolka Sanaag intiisa badan cunto inagu filan oo ka soo baxday noqon lahaayeen haddaynu ugu dhaqanno sidii ugu wanaagsanayn aynu isticmaali lahayn biyaha biyo ilma wad garanaysaa gudoomiye biyo soo maraya ciida aynu ku taagannahay boqolkiiba 90 ilaa 5 ilaa 80 way lumayaan. maayirka degmada Ceelafweyn Cabdiraxiin oo Yuusuf Axmed ayaa dhankiisa isaguna sheegay inay degmadani tahay mid qaranka iyo gobolka Sanaag ba meel weyn kaga taala hase yeeshee waxa uu hoosta ka xariiqay inay tahay tuulo dib uga dhacday deegaanada kale ficida. gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa isaguna u ballan qaaday inuu wax ka qaban doono baahiyaha ay sheegeen isagoo isla goobtaaba ku dhagax dhigay mashruucyo hor leh oo xukuumadda Soomaaliland ka hirgelinayso deegaankani. salaanta radeed Ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala mahad iska leh maanta waxaan halkan idinku imi haddii aad tihiin deegaanka Bixin runtii farxad weyn bay ii tahay sida ay soo dhaweyseen aniga iyo waftidaydaba iyo runtii sida wujuuhdiina ay uga muuqato farxadda iyo karaamadu aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantiin waxa laga hadlay waxyaabo badan runtii way farx gelisay haddaan mar labaad ku celiyo deegaanka Bixin iyo sida dadku ugu badan yahay iyo populationku aad iyo aad bay ii farx geliyay waxa kale oo halkan ka dhagax dhignay xanaanada MCH xanaanada dhallaanka iyo haweenka iyo dhammaan dadweynaha xanaanadaas waa goob caafimaad ama MCH iyadana waxaan ka dhagax dhignay isla iyo tuulada Bixin oo hoos timaada degmada maxaan ku idhahdaayay Ceelafweyn waxa halkan aan joognaa waa iskuulkii magaalada Bixin iskuulka waxa weeye laba class ayaa 120 arday ay dhigtaan sida ay noo sheegeen maamulaha iskuulka iyo macallimiintiisuba ruuxantii mana yaalaan waxa la leeyahay hal kursi lama yaal office male mas'uuliye male labadaas u baahda jooga waxaan dhagax dhigay imka laba class iyo office-kii iyo suuliyadiiba insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysan doono Ilaahay idinkii kuraastana sida ugu dhaqso badan ayaan